dowladda Itoobiya ayaa waxay jabisay rikoor hore u yaalay oo ku aadanaa beeridda geedaha. Waxa ay beereen 200 oo milyan oo geed muddo 12 saacadood oo qura. Dalka Itoobiya ayaa lagu beeray geedo ka badan 200 oo milyan oo geed. Waxa ay qaadatay maalin barkeed. Qorshuhu waxa uu ahaa in hal maalin lagu beero. Qorshaha mustaqbalka dhow waa in la beero 1 bilyan oo geed xagaagan. Waxaa ka qayb galay ololahan mas'uuliyiin sarsare iyo shacabka qaybihiisa kala duwan. Rikoorkii hore waxaa u diiwaan gashan dalka Hindiya. Waxaa dalkaasi lagu beeray 66 milyan oo geed muddo 12 saacadood ah. Waxaa ka qayb galay 1.5 milyan oo qof. Ololahaas balaaran sanadkii 2017. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo mas'uuliyiin xukuumaddiisa ka tirsan ayaa waxa ay geedo ku beereen magaalada Arbaaminshi ee koonfurta waddankaasi. Waa sida ay qortay wakaaladda wararka ee dalka Itoobiya. Abiy Ahmed ayaa bishii May bilaabay barnaamij taariikhi ah oo heer qaran oo lagu dhiraynayo Itoobiya. Waana mashruuc loogu magac daray dhiraynta waddanka. Waana qayb ka mid ah yoolka xukuumadda waddankaasi oo doonaysa in la beero 4 bilyan oo geed xilli roobaadka sanadkan. Ololahan ayaa ilaa iyo hadda waxaa lagu beeray 2.6 bilyan oo geed oo daafaha kala duwan ee waddanka Itoobiya lagu talaalay.